Assalaamu calaykum akhyaarta. Maanta waxaanu ka hadlaynaa 5 arrimood oo aysan weligood ka walwalin dadka daacadda ah. Haddii aad tahay qof daacad ah, weligaa kama walwalaysid 5tan arrimood inaad la kulantid. Lambarka koowaad waa loolanka dadka ama tartanka dadka. Haddii aad tahay qof daacad ah, marnaba ka walwali maysid loolanka dadka, sababtoo ah haddii uu mar jiraan loolan ama tartan, waxaa dadka dooranaya ama dooranaya qofka ay rabaan waa dadka bulshada. Marka bulshadu waxay rabtaa qof daacad ah, adiguna mar haddii aad tahay qof daacad ah, marnaba ka walwali maysid inaad ku guuldareysatid loolanka ama tartanka, sababtoo ah wax walba oo la qabanayo ama wax walba oo la sameynayo waxaa fure u ah inaad daacad tahay. Xitaa haddii naftaada aad wax u qabsanayso, waa inaad naftaada aad daacad u tahay. Lambarka labaad waa qadarin la'aan. Marnaba kala kulmi maysid wax qadarin la'aan ah dadka haddii aad mar tahay qof daacad ah. Daacadnimaduna waa waddada keliya ee ay dadku kugu aqbali karaan, maskaxdoodana aad ku hanan karto ama aad ku kasban karto. Lambarka saddexaad waa kalsooni la'aan. Haddii aad mar tahay qof daacad ah oo lagu bartay daacadnimo, marnaba la kulmi maysid wax kalsooni la'aan ah, oo mar walba kalsooni ayaad haysataa oo waxaad tahay qof lagu kalsoonaan karo. Haddii aad tahay qof daacad ah, in wax lagu dhiibo ama in lagu aamino, kalsooni ayaa lagu qabayaa. Marnaba la kulmi maysid in wax lagugu aamini waayo oo dadka ay kalsooni la'aan ay ka dareemaan. Lambarka afraad waa iska hor imaad. Marnaba dadka daacadda ah kama walwalaan ka hor imaad iyo in qofka laga hor yimaado, ama in ay bulshadu ka hor timaado, ama inay dadku ay ka hor yimaadaan. Haddii aad tahay qof daacad ah, waxaad fursad u haysataa inaad loolankaaga ama tartankaaga uu si toos ah u socdo. Lambarka shanaad, dadka daacadda ah marnaba kama walwalaan saaxiibada xun. Haddii aad daacad tahay, marnaba heli maysid saaxiib xun, sababtoo ah waxaad yeelanaysaa saaxiibo adiga sidaadoo kale u wanaagsan oo daacad u ah. Marnaba lagama yaabo inaad is heshaan saaxiibada xun, sababtoo ah marnaba ma lihid. Haddii aad daacad tahay, waddo aad ku yeelatid saaxiibada xun, sababtoo ah qof walba qofka uu uu la dhaqmayo uu la macaamilayo waa qofka asagoo noociisa oo kale ah. Haddii aad tahay qof daacad ah, waxaad la macaamilaysaa qof daacad ah oo wanaagsan oo sida adiga oo kale ah. Laakiin haddaad tahay qof xun, waxaad yeelanaysaa saaxiibo xun sida adiga oo kale ah. Waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. Fadlan, haddii aad nagu cusub tahay, ha naga ilaawin inaad noo saartid subscribe. Mahadsanid.